saddex qodob oo guul ku gaartaan inaan idin sheego oo xal waara lagu gaaro dawladnimaduna ay ku horumarayso waxaa la socotaan wadamadan la yiraahdo Asian Tigers Taiwan iyo Hong Kong iyo Singapore waxay soo mareen dhibaatada Soomaali maanta haysato problem argagixisay soo mareen waxay soo mareen poverty iyo faqiirnimadii ugu dambeysay qaarkood jasiirada oo dhagax kaliya ay maxaa la dhahay ku noolaayeen maanta adduunka muxuu u yaqaanaa economic miracle of modern society baa loo yaqaanaa istaraatiijiyooyinka iyo qorshooyinka ay dejiyeen Latin America iyo East and Central Europe iyo Asia qaar kamida soo qaadanaya maxay ku gaareen saddexda qodob ay ku gaareen aan idin kula dardaarmi ina qaadataan aan rabaa culture of innovation wax la yiraahdo adduunku curinu u guuray dadku inay fikiraan hal abuur la imaadaan ganacsiga iyo teknolojiyadu ka fikiraan dawladdu roolka ugu weyn ee leedahay kaliya waxa way enabling environment inay amni idin samayso amni baa idin sameeyne laamiya idin dhisne wixii soo haray dadka la rabaa inay isku tashadaan maskaxdoodana shiilaan aanay ka fikirin dawladdu inay qaada af u galgaliso reality-ga waa inaan ka wada hadalnaa qodobka labaad culture of resilience la yiraahdo adkaysi duruufo iyo imtixaanaan nagu socda fatahaada jira cimilada isbedelku ay keenayso abaaro fara badan ay imaanaya waxa imaanaya dagaalo fara badan oo maxaa la dhahay bulshada iyo conflicts badan baa jira ina adkaysi uga gudubtaan oo isku kalsoonaataan quwad aad yeelataan oo dhahdaan waan ka gudbaynaa waana soconaa resilience adkaysi asaasi buu ahaa waxyaalaha ku hormareen qodobka ugu dambe culture of cohesion midnimo dadku ina isku tiirsanaataan ina iscafisaan xasidnimadii ina yareysaan garab ay isa siisaan kiina liita idinka aad garab siisaan intuu ka fikiri lahaa inuu gacan shisheeyo wax ka sugo isku duubnaataan aragtida iyo geediga iyo qorshooyinka iyo siyaasadda dawladdiinana aad ixtiraamtaan cid idin dhahda waa la baahan yahay baahiya darbi ka soo boodaas adiga kala boodo hal dhaho marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan naga go'an annagoo gaashanayna wasaaradda qorsheynta federaalka Soomaaliya inaan taabagelino qorshooyin wax ku ool ah dadkana noloshooda wax loogu bedelo annagoo ilaahay kaashanayno waxaan rajaynaynaa insha Allah meeshii lagu gaaro 2027 inay magaalooyin asmaan oo dadku dib u dejin loogu sameeyo oo dhaqaalaha sare u kaco oo qayb ka qaataan horumarka Jubbaland iyo tan Soomaaliyaba saddexda dardaaran qaatay Jubbaland Soomaalina geed fadhi ugu noqda maadaama bulshada ugu muhiimsanayd inta dawladda ugu muhiimsanayd hay'adaha ay fadhiyaan dardaarankaasaan dawladnimadeena iyo xal waara lagu heli karaa waxaa sharaf ah inaan si rasmi ah idinku furo shirka saddexda maalin soconayo oo la yiraahdo wada tashiga wadiiqooyinka xalka waara una inoo furan yahay aad iyo aad u mahadsantahay